maanta aniga cadaaladii meeshan ka filay inay fadhigayga iigu imaatoon aamusnaay wax ii soo socdo waa la ahay wax ii damqanayo uma jeedo waxaan codsanayaa in wax laga qabto arrintii gabadhaas kiiskaas waa kiis weyn waa kiis dhibaato weyn xambaarsan waxaan rabaa maxkamadda inay waa hooyada dhashay Ikraan Tahliil waxa ay dalbanaysaa cidii dishay gabadheeda sababta loo dilay gabadheeda ilaa hadda lama og cidii dishay iyo cidii ka dambeysay qaali guxaad waa shakhsi hooyo ugu aloo jilcan hadda waxa ay ka sheekeynaysaa sida loo dilay gabadheeda iyo dawladda hadda taagan ilaa hadda cadaalad aan horkeenin qofka dishay gabadheeda si oo bal sug yaan ku suganay oo ku aamusnay maahana aniga kuma aamusni in macnaha laaleys leysiyay ama si kale leeyla dhaqmay aniga cadaalad darra ay hayso waa dulmanaan ahay gabadheydii raq iyo ruux ma haayo qofaaba inta dhinta laga sabraayo la duubtaa qofaaba waa xiran iyo dacwadaas loo qabaa liira intiiba ma haysto gabadheydii waa iga hor muuqataa waa xanuun iyo walbahaar iyo walwalan ku noolahay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka rabay inay cadaalad aan ka helo cadaalad ma haysto taliska nabad sugidda waa la joogaa taliyaa imaaday wasiir waa dhisan yahay waa ra'iisul wasaare wadanka wuu leeyahay ra'iisul wasaare xamse madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad indhaha fura maxkamadaas la dardargeliyo gabadheydii arrinteedii waxa layga qabto shalay waxa uu ololeynaysan waxay ahayd inay Ikraan cadaalad hesho oo qof kasto Soomaaliyeed oo cadaalad darra haysan cadaalad uu helo maanta aniga cadaaladii meeshan ka filay inay fadhigayga iigu imaatoon aamusnaay wax ii soo socdo waa la ahay wax ii damqanayo uma jeedo waxaan codsanayaa in wax laga qabto arrintii gabadhaas kiiskaas waa kiis weyn waa kiis dhibaato weyn xambaarsan waxaan rabaa maxkamadda inaad dardargelisiin wax iiga qabatiin meeshan filay ina laga hadlo wax hadlaay male aniga marka ina hadlo waa ku qasbanahay